bismillahi raxmaani raxiim runtii horta waa mudanayaasha sharafta leh iyo shacabkaba waxa looga baahan yahay waxaa waaye in waddankan horumarkiisa laga shaqeeyo. Waddankan horumarkiisana waa waddan u baahan si daacad ah, si niyad sami ah, si lilaahi in looga shaqeeyo. Marka waxaan ka xumahay in xildhibaan Cabdiqaadir Cusable iyo xildhibaano kale in maanta magaca qabiil ayagoo raba inay ku hadlaan in ay mar walbaba aflagaado ku hayaan caasimadda iyo shacabkeeda horumarkeeda ka soo horjeedaan. Runtiina oran karo waa qaswade u taagan in caasimaddan aysan horumar gaarin. Annaga kuma dayanayno, mana loo dulqaadan doono. Annaga waxaan rabnaa waxaa xildhibaanka sharafta leh waa kan ka fikira danta guud, waa kan si lilaahinimo muwaadinimo war qof walba oo isbaaradi maxaa waddankan ku soo kordhisay in la yiraahdo muhiima. Annaga caasimadda anaa hadda gudoomiye ka ah, duqa magaalana ka ah, arrimaha caasimadda iyo maqaamkeedana shacabka Soomaaliyeed oo aniga wakiil ka ahay ayaan ka wada tashanay. Meel fiican bay maraysaa. Madaxda hadda joogta madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayraana waa dadka mas'uuliyiinta runtii aan oran karo waxay u soo jeedaan in nidaamkii federaalka la hirgeliyo caasimadda maqaamkeedina la dhammaystiro. Laakiin waxaa moodaa Cabdiqaadir Cusable iyo xildhibaanada la midka inay u joogaan qas ay horumarkaas iyo maqaamkaas aan ka shaqeynayno si nidaam oo qurux badan dawladnimo aan ku wadno ayaa dhibaysa. Marka qof mar haddii wax dhibtana waa wareer, annaga kama daba qaadanayno. Laakiin waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir waa shacab runtii isku tashtay, shacab kalsooni siiyey madaxweyne Farmaajo iyo dawladdiisa, shacab dawladnimada ay ka go'an tahay weligeedna midnimada iyo wadajirka Soomaaliyeed u taagnaa. Muddadii 30 sano dhibkii soo marayna waa dadkii u adkaystay. Dadkaana dawladnimo waxaan ahayn ma rabaan. Marka waxaan dawladnimo ahayn shakhsigii wada ama siyaasigii wada isaga u taala. Annaga waxaa waaye waa aad baan uga xunnahay inay meelaha maaragtay aflagaada iyo ku wareegsadaan. Annaga waxaa waaye waxaan qabanay waxaa waaye waa la ogyahay 7 wado laami aan dhisnay. Cabdiqaadir Cusable intuu jiray muxuu dhisay, muxuu qabtay, intaasoo xarumood aan dhisaynay, intaasoo bulshadii iyo wadajirkeeda aan ka shaqaynaynay, midnimada iyo ummadda sukeenkeeda aan ka shaqaynayn, ummadda inuu kala geeyo isku diro buu ka shaqaynaya. Marka lama tirsanayno annaga. Marka maxaa ku soo beegay xilligan baad is leedahay eedaynta ay ku jeedaan? runtii eedayn aniga ima jeedin, shakhsina maaha. Wixii waxa kan waxa waaye idinkana ka dhigeen wixii shakhsi. Annaga waxa waa horumarka caasimaddan u taagannahay. Horumarkii caasimadda ayaa dhibaya. Qof horumarkii dhibayana qaswada maba isaahilaba in loo jawaabo. Fariinteedu waxay tahay annaga shacabka Soomaaliyeed runtii waa shacab dawladnimo iyo nidaam jecel. Dawladdan Maxamed Farmaajo waa dawladdii kasbatay kalsoonida shacabka. Qofkii dhibaya shacabkii dawladdii midoobayna waa qof oo runtii qaswada waliba ka xag jirsan kooxaha argagixisada. waa qaswade aan rabin horumarka u shaqeynaya dana shisheeye, wadamo shisheeyena kalkaal u ah. Annaga waa laga gudbay waqtigii kalkaal shisheeye loo noqonayay. Waa waqtigii waxaa la joogaa kalsoonida shacabka iyo dawladdii oo midowday hore loogu sii socodsiin lahaa.